dhalasho dhalaan soo kordhiyo ubadno dhasho dhalasho dhalaan soo kordhiyo ubadno dhasho dhalasho dursugiin mudda la idin dhowrayo idinkoo dhamma ah dhan kastaba nabdoon dursugiin mudda la idin dhowrayo idinkoo dhamma ah dhan kastaba nabdoon waalid idin dhaliyo dhammi ursamaan waalid idin dhaliyo dhammi ursamaan soo dhawaynaynaa farxadan dhammaan soo dhawaynaynaa farxadan dhammaan dhalasho wacan happy birthday dhalasho wacan happy birthday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وحمد عبد سوكسوك وحنا هاي قدومي كحيين كورك عبلها عرقنا فذكاية تفضلين جالاليس maanta ay taariikhdu tahay 2021 bishii sagaal keedii maalinimo khamiisa waxaan ku suganahay caasimada Soomaaliland ee Hargeysa gaar ahaan gargaar hospital maanta jawigu uu ka duwan yahay jawiyadii kale intaanan hadal kale u gudagelin maanta booqashada waxay ugu wehelinayaa agaasimaha ururka Tafbalan Garalis Adna Maxamed Cali xoghayaha ururka Tafbalan Garalis Xamdi Xuseen Xasan iyo qasnajiga ururka Saacada Maxamed Cabdiraxmaan inta kadib waxaan maanta goobta ugu suganahay oo ugu nimi walaashay ayaan xariir cabdi iyo walaalkii cabdi samed xuseen axmed oo ah lamaana aragga naafaka ah oo maanta gabadh yar ugu dhalatay caasimada Soomaaliland Hargeysa gaar ahaan gargaar hospital wacan ayaan maanta halkani kula soo wadaagnay hadaan nahay teamka TBG waxaan jeclaysanay walaashay inaanu kala qayb qaadano damaashaadka iyo reereynta iyo farxadda ay ku sugan tahay alxamdulillah wax ilaahay loogu mahadnaqo hadiyad ilaahay bixiyo wadba ugu qaalisan gabadha yar ee dunida ku soo biirtay habaryarka u nahay waxaanu leenahay allaha ka dhiga curadii taaba gasha ee tabaala lahayn tii dadkeeda diinteeda iyo dalkeedaba anfacda aad baan ugu wada faraxsanahay ma aha gabadh yar oo u dhalatay laba ehel oo kaliya balse waa gabadh qaran oo u dhalatay toon dhan oo aragga naafaka ah aad baan ugu faraxsanahay allaha barakeeyo alla tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda allaha ka dhigo inta kadib waxaan maanta anigoo jaaniska ka faa'iideysanaya halkan uga mahadnaqayaa maama Ifraax Maxamed Xaaji Maxamuud oo ah gudoomiyaha muassasada khayriga ah ee Al Noor Charity maama Ifraax waa maama nagu qaaliya ma ilaawi doono waa maamadii qaban qaabisay guurkii qoysaskii aragga naafada ka ahaa oo ay kamid ahaayeen ayaan iyo cabdi samed maama aad baad u mahadsan tahay waana ku duceynaynaa mar walba ilaahay miisaanka xasanaadka kuugu daro adduun iyo aakhiraba wax ku dhiba alla kuma tuso markasta iyo meel kasta aad ku sugan tahayba allaha ku karaameeyaan ku leenahay anagana korkaad noo saaran tahay waana ku xasuusnaan doonaa maantaba waxaan joognaa wixii aad beertay miradhalkiisii farxad iyo damaashaad baan ku suganahay adiguna waan jeclaan lahay inaad nagala sugnaato maadaama aad dalka dibadiisa joogto nagala sugnayn waxaan jecelnahay inaad jawiga insha Allah nala qaadan doonto hadii rabbi raali ka noqdo aadna waan ku salaameynaa anagoo wada dhan hadaanu nahay teamka TBG iyo teamka dadka aragga naafada ka ahba inta kadib waxaan u mahadnaqayaa walaalaha reer Sweden meel kasta ay joogaan oo leeyahay Allah idin sharfo waa walaalihii tan iyo maalintii ururka aanu bilownay hiiliyo hooba nala barbar taagnaa aad ban iyagana u salaameynaa aadna waan u jecelnahay sadaqada iyo say u soo dhiibtaan ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro Allah idin sharfaan idin leeyahay idinkana kullay waxa hadda goobta igula sugan xubnihii kale ururka iyaguna farxadda dareenkooda way ka dhiiban doonaan mid kastana kelmadeeda waa la siin doonaa balse waxaan ku soo dhaweynayaa qasnajiga ururka Saacada Maxamed Cabdiraxmaan oo ayaan xariir cabdi maanta gudoonsiin doonta $200 oo ugu tala galnay maanta anagu ka urur ahaan inaanu walaashayo farxadda kaga qayb qaadano oo kula damaashaadno waxaan ku wareejin doonaa mikrofoonka qasnajiga ururka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شيء حمد عبد السوكسوق وحن كل ياديات بعض ما هتصنت ولا على أيان حرير عبدي أولا مركورة ولا لوانك السلامي ياديات بعض ما هتصنت هاي ولا لو حن كجدوسين دونا قدر العقد تهلا $100 oo ururka hablaha ragga naafada ka ah tafbalan gaaralis ka socota aad iyo aad baan idinka gudoomay walaalahay oo soo booqday aad iyo aad farxad igu tahay walaalahayga ururka tafbalan gaaralis aad iyo aad baan idin salaamayaa farxadana inaad wada qayb qaadateen oo dadkooda faraxsan tihiin farxadda noo soo korodhay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin waxaa kaloo halkan ka salaamayaa walaashay hooyo maxamed iidaan iyo saygeeda cabdifataax maxamed yuusuf oo isaguna ka mid ah walaalahayaga aragga naafada ka ah qoyska baan u salaamayaa idinka gudoomay deeqdaas ciddii soo ajiibtay iyo ciddii ka soo qaaday iyo idinkaba ilaahay haydka jisaaysiyaban leeyahay waxaa kaloo shanska ka faa'iidaysanaya halkan baan mahadnaqayaa mu'asasada Al-Nur Charity oo ay ugu horeysay hogaamiyana u tahay maama ifraax waxaan leeyahay aad iyo aad baan ku salaamayaa wataan hoomirigaad beertay maxay hayday dalaguranayo marka aad iyo aad baan ku salaamayaa waana ku mahad celinayaa insha Allah barwaan soo wada hadli doonaa ilaahay maxay khayr baan dhammaan dilidooda rajeynaya walaalahayow saad farxadna wada qayb qaadateen iyo saad noo soo ajiibteen saad noogu timaadeen wallahi dhammaanta waxaan ogaaday maanta walaalahay inay maxay hayday wax kasta noo soo kordhaba nala farxayaan ayaan ognahay oo idin qabnaa ma hadan taas idin hayno idin dareensanahay marka walaalahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqay waxa gabadha yar ee dunida ku soo birtay waxa loo bixiyay mahado waxa leenahay haba qaali soo koro soo barbaar Allah ku soo koriya ku soo barbaariyo intaana nu dhiibin walaalaha kale ee xubnaha ururka goobta igula sugan waxaan hambaliyo iyo bogaadinana soo koobi karayn aan ka sidaa oo ay soo wakiishay oo maanta dalkayna gula sugnayn gudoomiyaha ururka hablaha aragga naafada ka ah ayaan Saleebaan Nuur iyo afayeenka ururka hablaha aragga naafada ka ah Hoodo Maxamed Iidaan waxay yiraahdeen walaalahay waanu jecelnahay inaan farxadda kala qayb qaadano balse goobta kulma sugnin hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin naga gaarsi aadna ayaan way u soo salaamayeen iyo Cabdisamadba gabadha yarna aad way ugu soo ducaynayeen inkii haatan waxaan ku soo dhaweyn doonaa agaasimaha ururka tafbalan gaaralis aadna Maxamed Cali oo barbarkayga taagan aadna qaran ku soo dhawow aad mahadsantahay xamdi cabdi suqsiga gudoomiye ku xigeen maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed Allah subhanahu wa ta'ala ayaa inagu simay walaalkeen Cabdisamed Xuseen Axmed iyo walaasheen ayaan xariir cabdi gabadha yar ee u dhalatay mahadayar waxaan leenahay eedo iyo habar yar noqotay dalkeeda dadkeeda diinteeda iyo waalidkeed baan anfacday dhammaan bulshada ballaaran ee habar yar iyo eedaba ku waheed ka dhalatay ka dhigay ilaahay tii anfacday wuxuu tartay insha Allah billahi kariim sida lagu mahadnaqay lagu farxadiyo waligaa lagu farxadiyo habar yar iyo eedo soo koro soo barbaar baan ku leenahay وهذا مكان وحن كسر دوين دونا حق هيها أورك حمد حسين حسن وكلمة ذي هل كان كديبن تونتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقاعد حمد حسين حسن حويا أورك هبلا رجعنا فذاك تفقلين كارليس أدبر ما هتصنتهاي قدومي كحجين كي حمد سكسك ما أنت ومعلومة كلودا نوجد وين أديات بانو فرح صنعي marka ugu horeyn waxa mahad Allah subhanahu wa ta'ala inta yar maxay toolay wax ilaahay bixiyo hadiyad ilaahay bixiyo wax ugu wanaagsan ubad ilaahay u soo hadiyeeyay dhammaan ummadda islaamka waa inay roog soo birtay u soo hadiyeeyay waa marka ugu horeysa mahad leh aad baan ugu faraxsanahay walaalkay Cabdisamed Xuseen Axmed iyo walaashay ayaan xariir cabdi inta yar u dhalatay aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay habo soo barbaar noqotay diinteeda dalkeeda waalidiinteed edooyinkeed adeeraheed iyo habaryaraheed dhammaan bulshada naafada iyo bulshada aragga naafada ka abad si anfacda insha Allah noqo tii sida maanta loogu farxay dhalashadeeda wiligeed loogu faraxsanaadana noqo aad baan ugu faraxsanahay hadaan nahay hablaha aragga naafada ka iyo hadaan nahay ururka TBG-ba ilaahay waa mahadle aad baan salaamaya dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogtaan وهذا مكان وحن كسر دوين دونا قسمتي أورك سعد محمد عبد الرحمن أو مقال كان ينصو أثمير دونتا إن شاء الله حمد عبد السوق آديات بعد ما تصنت ولا قالي
waxaan hambaliyo dhalasho wacan halkan uga dirayaa ayaan xariir cabdi iyo cabdisamed xuseen cabdi oo gabadh yar maanta ugu dhalatay gargaar hospital waxaan maanta la faraxsanahay walaalkay iyo walaashay maadaama inaan yar u soo korodhay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka dhigotii idin anfacda idinka iyo maaragtay ummadda muslimiinta iyo weliba bahda aragga naafada ka ah waxaan leeyahay haba soo kor soo barbaar tidalkeeda iyo diinteeda iyo weliba waalidkeed baan anfacda allah subxaanahu wa tacaala ha kaa dhigo maasha allah waa taa maanta waan oohinteeda dhegaysanayaan ku faraxsanahay aad iyo aad baan idin salaamayaa ayaan xariir cabdi iyo walaalka cabdisamed xuseen ka maqan intaasi waxaan kusoo gabagabeynaynaa booqashadii iyo weliba hambaliyadii ururka hablaha aragga naafada ka ah ee Tafbalayn Girls anagoo weliba ayaan waqti badan dib ula sii qaadan doona muuqaalkeenii intaas ayaan kaga baxayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.